xulka qaranka Soomaaliya ayaa maanta wuxuu la ciyaari doonaa xulka Eritrea kulanka ugu dambeeyay heerka Guruup-yada Soomaaliya kulanka ugu dambeeyay wuxuu ka soo adkaaday xulka dhigiisa ee Burundi hal gool iyo Ibrahim ugu soo adkaaday doornimadana wuxuu la ciyaari doonaa xulka 6 dhibcood leh Eritrea kaasoo kulanka ugu dambeeyay ka soo adkaaday xulka Djibouti Soomaaliya kaliya maanta wuxuu u baahan tahay in gool ka gaarto Eritrea Djiboutina laga adkaado taas ay ku xaqiijinayso in uu soo baxdo wareegga xiga ee tartanka bariga bartamaha Afrika 2019 kaasoo sanadkan martigelinaya dalka Uganda oo ah dalka ugu guulaha badan koobka ilaa 14 jir ay ku guuleystay xulka qaranka Soomaaliya ayaa 7 saac bar wuxuu la ciyaari doonaa Eritrea kulanka ugu dambeeyay heerka Guruup-yada wuxuu ishu ku hay doonaa kulanka xiga ee Djibouti Uganda hadduu Eritrea ka adkaado xulkeena rajada sanadkan aad ay u wanaagsan tahay bandhiga ay sameynayaan xidigaana xulkeena waa mid aad u wanaagsan haddaba ciyaartooyda ka ciyaarta horyaalka Soomaaliya Premier League iyo fanaaniinta jooga gudaha Muqdisho ayaa aragti kala duwan ka dhiibtay kulanka weyn ee dhexmari doona xulalka Soomaaliya iyo Eritrea haddaba waa kuwan ciyaartooyda iyo fanaaniinta oo aragtidooda ka dhiibanaya kulanka Soomaaliya iyo Eritrea aniga waa Cabdikariin Cabdalla Maxamuud oo ku magac dheer Qubayo runtii matchka bari wadankeena waxa u rajeynaa guul 2-2 bismillaah anoo magacayga ku bilaabay Xasan Maxamed Aadan waan ku dhawahay TV-ga Goal FM berito haddii aan ka hadlo xulkayga qaranka Soomaaliya iyo Eritrea waxa guul u rajeynayaa insha Allah xulkayga qaranka Soomaaliya wali waxay ku adkaan doontaa 2-2 insha Allah guul u rajeynaa xulkayga qaranka Soomaaliya aniga Cabdicasiis Maxamed Toosh waxaan guul u rajeynayaa qaranka Soomaaliya insha Allah waxaan rajeynaynaa inaan ku badino 3-2 bismillahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Maxamuud Cabdinuur Meeman insha Allah xulkeena qaranka bari waxa u rajeynayaa guul insha Allah inay 3-2 ku badiyaan bismillaah magacaygu waa Daawud Cabdullaah Tubaal ka tirsan kooxda kubadda cagta ee dekada insha Allah taala bari waxaan u rajeynayaa xulka qaranka wadankeena Soomaaliya guul taariikhi ah wali ma aanan ka soo bixin Sakafa Senior Challenge Cup wali ma aanan ka soo bixin heerka gruupka insha Allah taala bari waxaan rajeynaynaa markeen ugu horeysay in aan heerka gruupka aan ka soo bixi doono insha Allah Rahmaan Rahiim aniga waa Cabdicasiis Maxamed Cali Cabdicasiis Hoomay ku magac dheer berito waxaan la dheelinaa xulka Eritrea anaga xulka dalka oo Soomaaliya waxaan u rajeynayaa guul taariikhi ah aan wali la arag waxa ay qabteen wax aan la koobi kara ma ahan qof walba oo Soomaaliya muwaadin ah oo dareemi kara waxa xalqagaas ka dhacay marka bari insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo waxaan ugu fadhinaa guush noo soo hooyilayeen anagana farxadii inaan la qaybsano mar walba garabkooda nahay hel iyo taageero iyo wax walba waan u haynaa waxaan rajaynaynaa guush ugu wanaagsaneed barito inaan gaarno haduu Alla yiraahdo bismillahir rahmaanir rahiim xulkeena qaranka Soomaaliya insha Allah taala maanta waxaan u rajeynayaa xulkeena qaranka Soomaaliya inaan ka badin doono Eritrea aan ugu badin doono 1-2 إن شاء الله تعالى. مركو روح على إسلامنا دمان مد الصوماليات مركز جوكتان وحنو لين هنا وتكوارا مركز حيجا هالكن وحن ما أنت تاجر أنو موجنينا نحلكينا قرنكا ونهانتي شلي يقول في عن سهوي برينا نوصل علينا هدي له يقول ونكسن يقول بتيك ونكسن هالكن واحد سؤالني يسعى تاريخ حد وحنا صبحنا عيار ونسوق لسنين حلكينا قرنكنا إن شاء الله وحنو رجينا إن يقوليستان haddii aan saadaaliyo ciyaartaasi Soomaaliya Eritrea anigu waxaan ku saadaaliyay 2-1 oo qaranka Soomaaliya laba leeyahay halkan la dimartida Eritrea ma sha Allah aniga waxaan leeyahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogtaan hambaliyo guushii shalay ka gaarnay sheeg qaranka Burundi si lamida waxaan rajeynayaa guusha labaad inaan ku badin doono 3-2 maxaa ku dari 3-2 ha Soomaali 3 Eritrea dhaxan 0 waxa weeyaan talo waclo adeeg markasta guuliyo gobonimo lana xulkeena qaranka isku soo wada duubo kuwaasi waxa ahaayeen ciyaartooyda dalka iyo fanaaniinta dalka ku sugan oo aragti kala duwan ka dhiibanaya kulanka ugu dambeeyay heerka Guruup-yada tartanka bariga bartamaha Afrika haddaba daawade haddii aad daawanayso muuqaalkan Soomaaliya maanta maxaad u rajeynaysaa aragtidaada hoos inoo reeb waad maasantiin Cabdi Fataax Abdirashiid Abu Karnaani Goal TV